بسم الله أن مجري وعلى الله حسن الساق محمد وحن كلش تبدو الشباب وحن كبيري أول كوني سجالكي كبيرة توبرك وحن قاتي كذا قرباري قاتي وحي تشكيلي أنا جرى لي تشكيلي أفريت ونجر استعيت ونجر من الحسن وحي تشكيلي قاسم يوم مثل ده محمد على حسن يوم مثل ده محمد على حسن أي تشكيلي كواسي تشكيليين كاسيدين وحي يقدقين وحي وحملبا يقدقين مركز هذا الكود نكوري ما هو تهليل iyo atar badan dadka loo marinayo wadahaasa sidii wixii aan ku galnay ay ka dhigayaan aakhirada wax intay ku soo joogto jannada intay ku marayso ka dhigayaan heesi ka dhigayaan 2009kii waa yaraan 2009kii waa si fiican marka 24 sano jira hadaan ko iyo wixii wadaan iyo 10 sano mana diidi kartid hadalkood hadal saartidna biswa hooyada ma dilaysaa lagu dhaawaa dilaysaa hadal ma keeni kartid xaq isdhikaday ku dhahaan waa isdhigaysaa hadal male bilaa macna hal mar hadla kun jeer ifaan lagu leeyahay hal jeer aan kula hadla kun jeer ifaan ma kor imaan kartid ninka markuu ugu hadlo hadaa miica laga dareemana هذا أو مخم ما حي تريد بسوا ومخنتها أنا يوم أمريكي مجلسي لما يسترم أخان لكاسين ترابي أخانا وحنا هنا أني وحنا استكين جبا هنا أمحي وحنا هنا محمد داخ مرق منور iyo waxaan ahaynay maxamed kala jireesna oo xiran yahay maxamed maxaa la jiray afkay been kareeb xajiri abdullah ibrahim iyo madax liiban madax kariye iyo waxa jiray unig saadaq la dhaw inta sanayn أنا وحنا قابلسنا قعيرها وحنا ترابي قعيريسا وحي اللي كانوا وأسي كركا كانوا أنا ويلي ما نجري مركا لأن يرتن اسكوع جرني أنا وحي وحي استكين وحي يعني استكين وحي جبع ساسا وكل وسيني هدايا ساسا وكل وسيني وحي أصلا كانوا أنا أفرتين أسبوعين مركا أفرتين هوش والقليني هاد يوحي هوش القلم أنا إقاسن استكين يجبع أحمد علي محمد كل شيء قبل كبنادر قارهان حافظه هلواء كنا برباري دقمة الديني له الشباب وحن توبر كسوقاتي شباب هذا الدحاء وحي تبري مع الحاش اللي را وهذا مارتان نولن ودنتي kadib mar sanadkii waxaan ku soo biiray 2009 gobolka Shabeellada Dhexe waa lagu soo tababarkii waa ka soo tagay xaggan ka soo tagay waxaan soo aaday Gaalkacyo 2000 waxaan soo aaday iyo 10kii waa qaybta maartay bastooladaha iyo bambatuurista waxa la soo tababaray qaybta amniyaadka oo madax jibinta iyo bamba tuurista qaabka dadka loo dilo iyo qaabka dadka bambada loogu tuuro raac hore iyo raac dambe inta waa la soo baray tababar fiican ku soo qaatay kadib markii xagga aan maaragtay ka soo tagay waxaan soo aaday 2010kii Gaalkacyo gobolka Shabeellada Dhexe waa Balcad aan tababar ku soo qaatay 2009kii aan xagga tababar ku soo qaatay 2010kii waxaan soo aaday Gaalkacyo aan soo aaday Gaalkacyo markaan soo aaday team la aasaasay anigoo joogo xaafad waa Gaalkacyo waxa ugu soo dhaweeyay Liibaan Ciise Leeraa ay ugu soo dhaweeyay madax kariye Leeraa oo haddaba ka tirsan teamkayga
kadib markuu ugu soo dhaweeyay meeshii aday muddo 2 sano camal waxba howlgal ma sameyn gaalkacay dhexdeeda waxba howlgal ma ku sameyn aday 2000 waxba howlgal ma sameyn markaas 2010 iyo 2 ahayd waxba howlgal ma sameyn waxaan danay kawaanka geela oo suuq gaalkacayo aan shaqadeeda geela iyo waxba la kala faahfaahiyay anoo xaq wax faahfaahsan ka imaaday sidii anoo gaalkacay aan ku soo galay galmudug qaybta galmudug qaybta baraxley xagga aan ka soo galay shaqadii waxa liibar maartay oo geela customerka iyo waxba la abuuray liibana maartay shaqo galiyay kadib markii 3 sano 2010 iyo 3 2014 aan dana waxaan soo galay teamkan soo galay waxaan tashkiiliyay oo tashkiil leeyri oo la hadal leeyri liibaan oo teamkiga koow ka ahay jubbe maxamed abdullaahi jubbe saadab amxay koow howlgalkii ugu horeeyay wuxuu nagu baroobeeyay bombo canuun oo nagu baroobay ciidan sahanka ahay isgoyska 5 star iyo maqaayada karaama oo ka bacdi aan u dhiibay liibaan ciise u dhiibay iyo maxamed sharaf ayaan u dhiibay gaagaalan wuxuu ka ahay sahmiye ka bacdi waxa lagu tuuray askar socoto argada galmudug lagu tuuray waxay ahayd adiga markaas 2010 iyo 2013 labada ciidan roonda sameynayay adiga 2010 waxay ahayd shanti ay ahayd xilli waxay ahayd adiga salaada maqribka iyo salaada cishaa ay inta u dhaxaysay kadib aniga maba sii warwareysan waa maqaayad baa shaah ka cabayay ka bacdi markii howlgal ka dhacay waa iska soo xarooday aniga xaafadda ayaan iska soo aaday wiilashii ay imaadeen howlgalka ma sameeyeen waa sameeyeen dhahan sahmiye saadaq wuxuu yiri maxay ku dhimataan dhahay qarax hal wiil ku dhintay yiri wiil kalena waa ku dhaawacmay ma uu qabo markaas waa iska sii xaroonay shaqadiina kala qabsadaan dhahay teamkayga qaasim oo u sheegay waxaan dhahay qaasim howlgalkeen annaga waa ka soo baxnay maxaa xog u noo haysaa qaasim wuxuu yiri wax xog waxaan idin hayaa raggan waxay ugu tala gashay oo maaragtay howlgalka aan u diray waxa ugu tala gashay aan ka rabaan dhahay qaasim markaas wuxuu ii keenay lacag $150 oo ii keenay xilli waxay ahayd habeenkii oo qaraxa oo ku tuureen wiilasha isgoyska 5 star iyo argada iyo maqaayada karaama inta u dhaxayso habeenkii ka hor habeenkii lagu tuuray habeenkii ku xigay oo wuxuu ii keenay lacag $150 oo warqad ayuu ii keenay bismillaah magacayga ku bilaabayo liibaan ciise wili ku dhashay xamar degan degmada Daynile waxa halkaas waxbarasho kaga galay dugsiga Quraanka waxbarashada dugsi hoose dhexe waxaan kaga galay dugsi ku yaal degmada Xamarjid xaafadda Xamarjid waxaan ka tirsanahay ururka al-shabaab waxa tababareeyay jooga xamar waxa la yiraahdaa Shire Maxamuud كبعدي وتبرع لو waxaan noqday 2007 okay saad ku noqday oo qaraabada ayaa yiri maalmaha kamid ah yar qaraabo aan nahay maalmaha kamid yiri tashkiiliyay ilaahay shaqa ku hayaan nageen shira leeyahay okay marka maalmaha kamid waa raacay wuxuu dhaaniyo maaragtay kawanada maxaa qabataa camal waxa ma qabtaa yari marka weerinayo arin baa ku sheegay marayna isku hankan waa yari isku maanay habeenada kamid ah oo hadalnay marka ururka al-shabaab ayaa ku daraya qaybta xamar tababar baa lagu fidinayaa ka bacda waa shaqo gelinayaa kadib wuxuu u wareejiyay leeyahay Cabdifatax waxa ligay deegaanka Celash biya dawladkiisa tababarka kaga soo qaatay muddo 2 bilood camal ah
kabacdi howlgalka koowaad waxaan fulinay aniga yar kale saaxiibkay ah wuxuu ku dhacay degmada Daynile gacanta koowaad aniga lahaa gacanta labaad waxa la leeyahay Abdikaafi waxaa lagu dilay sargaal oo ka tirsan ciidanka Maxamed Qayare Maxamed Qayare ka tirsanaa okay dilka labaad wuxuu ku dhacay meesha la yiraahdo xaafadda Amnijiid gacanta koowaad waxa la yiraahdo Abdikaafi gacanta labaad aniga lahaa بعد مدة يا لجوي يا dilkaas ay raacay dilka wuxuu ahay mid ka tirsan shay wuxuu ahaa gudoomiye waaxid waxaas waa kabacdi howlgalkii ku xigay wuxuu ahaa bambo ku turnay shay isku kaara gaari maray saddex qof oo reed ayaa ku dhaamantay bombada labaad waxaa ku turnay meesha loo yaqaan argada lambar 4 ninka ma sheegi karin inuu wax ku gaaray in kala laakiin Abdikaafi ayaa ku tuuray bombada kabacdi muddo ayaa ka soo wareegtay waxa soo baxay halkan iyo gaalkacyo لو كني سديدي waxaa ku soo degay leeyahay Abdiwali Maxamed Xasan magacayga Maxamed Sharaf Le Maxamuud Culisow oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab magacayga afgashadeen leeyahay Amahay xarakada waxaan ku biiray 2015 rasiidii 92 meel la joogaa haya stilaat sama waa xagee Daynile dugsi iskool waxaan ka gaaray dugsi labaad kadib shaqooyin aan iska galay xamaalada iska dugsi qoraan barto 104 haya kadib xamaalada iska ahay shaqada hilibka iska galay ururkaan ku biiray istakiin baa igu dhaliyay oo asna adeerkaya shambilow tababaraan soo qaadanay gaalkacyo ii soo diray xagee soo soo Daynile ka xagee degmada baadiye tuule oo la yiraahdo haya ku weelka algoona istakiin yaa ku weelka istakiinde haya muxuu ahaa tababar ku soo tababarka qaabka oo jabiska qaabka bomba tourista labadaas waa afar weeyar galado haya qaraxas afar baahan كوكب أفضل دكاترة جوبا أفضل أفر ويدي لو بومبا يهالقرح يهال دنا قعنت لواذا هي مثل هو سحاق دلك ما بيها دلك أسكر جواي استكينا قعنت كواسكلاي قعنت لواذا أنا أسكلاي بتجانا اللي ما أفدون بدل هل قد يعمل أسكري يموت ولا بتجانا واضح حق المدن عياروين أظن حاضر أنا قعنت لواذا لهذه تعرف استحب هي أسكري الشيء تبغى تدور أسكري قعنت لواذا كله فصدق قعنت كواد استكينا كله فصدق صدق بقول حقيقة حاولتك وين حاولت طلبات القلق بعد بمبضاس الهوتيل كتورنا تلفين هوتيل جلوبال قلوب حقيقة يعني فيش تركتي وين بدون حقيقة هم جلسين شكلي أنا بتشجع صارين ده حقيقة هم جلسين ذاك عيل ده قلبك أنا عارف وين حاولت كم قرناتهم تسعة هي كل شيء الله سعد واحد مقرنا لك أفرع هنرت هي ليس بمبضا نكتوري استكين يا استكين ها عبمبضا تورا
يا nuur xuseen abdiqaadir هي miyaan ku dhashtay degmada magaalada marko shaqada aan qabtay shaqo hilib ta labaadna waa ii sheeg shaqo faryaamo انت سنه شغال 23 jir حاول تقول لك شفتي markaan joogi waxaan qabi jiray kawaanan hilib kawaanan ka shaqay jiray kawaan leeyahay tan labaadna faryaamo ku beeray اوكي محاضرة aqoonteedii waa tahada ku sheegay diinta xageeda aqoonta ku leeyahay في محاضرة ya محاضرة ma sha Allah ها diinta ma sha Allah ku قرآن ما محاضرة ya قرآن ما بس quraanku waa dhimay ku dhaw كتبت أصحاب كتبتها ya كتبتها kutubta kale كتبت على حديث وصار محاضرة xadiisi kale ma aqaan واي قرآن كان عايز galka ay 2013 imaad يا كل سنة ya kaliya imaad هاي حاولت ولا هاي ya حاولت shaqo inay shaqaysto darteeda imaad هاي يا ما قلت لك على ya يا ما ya ka aqoonida يا ما قلت لك على حاجة بس ما كانت حديثك على حاجة وصلت galka ay waxa ku soo degtay kawaanleedu ku soo degtay dhalinyarta kawaanleed أوكي نعم قلت لك galmudug يعني ha أوكي هاي إن شاء الله قلنا نقول 2014 هاي haka يا أبو صدري maxamed deeq ay ugu soo daray groupka waxa lagu soo biiriyay xasan iyo istakiin يا أبو groupkaas waxa kamid ah juba kamid ah muruqa kamid ah ii sheegtay kalnoani يا iyo liiba madax kari يا الله ah أوكي يا أبو صدري حتى ya maxamed deeq يا كشكي maxamed deeq ay ugu soo tashkiiliyay هاي طالب حقا tababar waxaan qaatay ii sheeg qofka qaabka loo dilay ii sheeg ku dhaqaataankiisa qofka qaabka loo dilayo oo loo dhaqaaqo qofka qaabka loo dilay ah hay sidee qofka loo dilay ya sidee qofka loo dilay qofka ama sii jeedo hay ama uu ku soo jeedo qofka soo adoo sii jeedo oo kale ama sii jeedo oo kale gadaashiisa inay ka yimaadid ama soo hor istaagtid intaas qofka loo goobsiyaa wax howlgal ah waxaan qabtay labo howlgal oo gacanta koowaad waa ka way waxa kala qabo gacanta saddexaad waardiyanka ahaa way labada howlgal gacanta koowaad ay xagee ka dhacay yaa sabab fiirin waxay ka dhaceen mid toobaas ay ka dhacday toobaas hay midna five star ya galmudug waa hay midna five star waa hay haka halka lagu dilay maxay kala ahaayeen ya dumar bay ahaayeen ciidan bay ahaayeen mid sirdoon u ahay midna nabadoon u ahay mid sirdoon u ahaa midna nabadoon u ahay magacayga waa Dhaqadir Cabdullaahi Xasan magaca xaqiiqa muruq haye waxaan ku dhashay degmada Hurwaay haye sanadka 94 صح waxaan ku marbaay degmada Daynile dugsi waxbarasho iyo iskool ay u geeyay kadib waxaan imaaday magaalada Gaalkacyo sanadka 2018 bilowgiis halkaasaan ku galay arkada al-shabaab waan ku biiray yaa kugu soo daray tashkiiliyey igu soo daray istakiin ayaa igu soo daray kadibna sidaas baan ugu biiray ayagaa igu tashkiiliyeen maxaa kamid ahaa inuu tashkiiliyo waxyaalaha kugu dhacay annaga nagu soo biir lacaga lagu qorayaa annaga nagu soo biir wax saasay dhahayeen
waxaan la fuliyey adiga ilaa 4 howlgal ayaan bajaaj ku waday waan geeyay meel kana soo celinay asaas kula fulinay isnoole marka ani waxaan gacantayda ugu fuliyey waxaa ka jira 2 howlgal oo ka dhacday suuqa iyo meesha u dhacaysa xirtoogta iyo cusbada agteeda labadaas howlgal ani wax ka fuliyey labadii howlgal baa aniga aan lahay gacanti dambe oo gacanti koowaad lahay istakeen mid kale tan xirtoogta agtiisa ka dhacay meesha cusbada dhacaysana gacanti koowaad liibaan lahay tii labaad ani lahay yaa laga kala fiiriyo labada howlgal nin ganacsato waa la hayaa lagu fuliyey istakin sheegay ganacsato waa la hayaa isfaani ma aqoonin midna askari oo hay meesha cusbad agteeda iyo leetooga inta dhaxaysa lagu fuliyey howlgal ninka bishaasha saarnaamiya maya ninka waa meel uu fadhiyey halkaas aan howlgal ka fulinay kan labaadna cusbada agteeda miya howlgallada aad bajaajka ku qaad ka warbilan xarakada adiga ilaa 4 howlgal meesha ku qaaday ilaa 4 maraan ku qaada mar Cabdullaahi Ciise agtiisa iyo mar kaleeto isbitaalka agtiisa iyo 2 howlgal oo kale oo ayagana xaafadaha dhexdooda le ah magaalada imise mudada baad xarakada bajaajka ku qaadi jirtay kuna keeni jirtay meesha ku dilayaan kana qaadi jirtay imise waqti dheer هذا لا شن بلاد عمل هو هذا يجري حال سيجي هذيك البتشات والكاب وحس مرة بوحة اللي تيجي مرة $10 ولا $4 مرة بوحة اللي تيجي مرة بس هي اللي تيجي حول العالم عنك الماضية عنك المسيج ما يكون أصبح العقل يقوم يسيجي صلاة الشقاء هو ساعتها ليري شغل شمرها هو صوب على العقل هو بالله شقاء مركز فعن كتابرته هي العقل هو بالله كل شغالين هاي magacaygu sida waxaa la yidhaha maxamed abdullahi xuseen waxaan ku dhashay shabeellada dhexe ku dhashay jawaar waxaan kusoo barbaaray muqdisho waxaan xarakada al-shabaab ku biiray 2008 ayaan ku biiray waxaa igu tashkiiliyey axmed cali istakiin ayaa igu tashkiiliyey asagaan lahaa tababarkan asagaa soo siiyey waxaan ahayn aniga iyo nin la yidhaahdo amaxow oo maxamed sharaf la yidhaahdo in la yiraahdo liibaan ciise oo la yiraahdo madax kariye baahan Allah musta'an kadib waxaa imaanay marka tababarka xagga aan ku dhameysanay waxaa imaanay kaalkaac waxaa noo soo dhaweeyey isaga kooda liibaan noo soo reeyay liibaan kadib istakiin imaaday istakiin markuu imaaday baa waxaa hadana aniga soo maxamed sharaf la wacay maxamed sharaf markuu wacay kadib waan soo wacay istakiin markaas baan imaaday kaalkaac imaaday tababarka oo soo qaatay oo ku sheey xamar oo soo qaatay tababarka xamar oo soo qaatay oo soo qaatay Daniel iyo meesha warta nabada labada meel ku soo kala qaadanay ya tababarka ku saabsanaa si bistoolada loo riday markaas cunug yaraan awoodan ku qaadan malahan markaas xamar waxaa la baray si taleefanka oo dadka isku xiro oo la soo indhe taqaana baaha markaas oo la baray inta aan ka gaaray heer bistoolada aan qaadi karo bistoolada ridisteeda asaga inta ugu baray xaafadiisa ugu baray istakiin gurigiisa dhexdeeda ugu baasaan baa loo riday iyadoo faaruq oo tusay gurigiisa wuxuu ku yaalaa baraxley ku yaalaa gurigiisa baraxley ku yaalaa حبات مو كجرم بعيد ويبرو تشي سانا لوري داقيت لا مجد اساسا ودا اساودا
aniga horta ninka magaciisa hadda maskaxda kuma hayo balse ninka yaqaano waa istakiin oo amarkii ugu siiyey oo korba igu tusay oo yimid meesha marka aan imaanay aniga asaa wada soconay nin wuxuu ahay oo xildhibaan musharax ahay oo isku diyaarinaya markaas macnaha xafladda oo taallay marka xafladda aasaaskii buu wada asaga qaabka ya waa galmudug waaye agaarka 5 star ku yaala dabaqa igu soo dhicin baa la yiraahdaa sabta igu soo dhicin baa lahaa wuxuu ku yaalaa 5 star marka laaf ku yaalaa marka asaga oo idil wuxuu yiri ninkaas wuxuu yiri hawshiisa hal galo yiri adaan ku diraa aniga adiga asraacna ama wuxuu liibana ku raacay koreyka wardiinayaan iyo muruq koreyka wardiinayaan adiga waxa sameeysaa gudaha markaa gashay si tartiib ah labada gees ka fiiriya dhag soo sii odhaa meesha ka soo carar waa meesha baraxley galmudug sabta ay u soo dheen xilli oo adiga galabna laga baxay habeen la galaya badiyo kale markii aan shaqada soo dhameeyo soo baxay isla markii liibaan iyo ninkan amxilaa korna u wardiinay noo soo raacay ayaga soo raacay istakiina igu yimid oo mooto kala watay sida waa macnaha u dhiibay sawiradiisa ay qaatay ay ard markaa saxantahay ya afar xabaa ku dhiftay intaana kaga dhacday marka ninkii waa la aqoonsaday oo xaggii dhinacaas laga aqoonsaday aniga waa la fahmay la soo wacay deedii waa la dhiibay ciddana dhiibtay kadib waxaa la barnaamijkan iska jooji